warbixinada wareysiyada barnaamijyada waxyaabaha dunida ka dhaca intaba waxaa idinla diyaar ah oo aad ka heli kartaan page-ka internetka aan ku leenahay www.radiorisala.com. bangiga dahabshiil dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii uu sareeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubtaa marna oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaayo ka haay dahabshiil group banki ammaano oo xifdinaya bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne master maxaa cusub baal ee hormuud telecom oo muxuu ahaa waa fariinsida ku fududaynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sideen u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u diraysay fariinta codka ah 134 waa fududeeyaha fariin codeedka taariikhda laba sano ayaa u fiihay Djibouti laba sano waa fadhanaysa heerka hore ciyaar Djibouti aan ku diyaarnay aan dhexeed iyo gobolada waxa loo qaaday inay tago goor loo qaadan aad baan ugu farxay birlada waxaas kale ama maskalihi dadkii oo dhan gacan qabtay Soomaalida dhan gac Soomaalida tan ku hadlano waxaan ay askale birlada Mo Farah takes the goal. So ladies and gentlemen, mudanayaal iyo marwooyin waxaan hadda u istaagnay inaan helno natiijada codaynta The name is ciyaaryahanka adduunka sanadka waa Cristiano Ronaldo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنو soo gudbinta barnaamijka ciyaaraha idaacadda Risala waxaa gacan ka geysatay shirkadda qalabka elektarooniga ee Beko waa company keena qalabka elektarooniga kan ugu tayada fiican waxaad ka helaysaa qasaaladaha firinjeerada mukayfiyada maruuxadaha feerooyinka dharooyinka iyo qalab kale beekada Barcelona waa iyadii okelkaga shopping center My word, this boy's a star. 4 games, 4 goals at World Cup 2014. وسبدي تاريخنا يكون بيغان تاي 24 bisha February sanadka 2018 barnaamij binaawar bixino falanqeymo rikooro iyo wararka suuqa warbixinada barnaamijka maanta aad ku dhageysan doontaan waxa ka qayb ahaan doona kooxda Paris Saint-Germain oo shaacisay oo ku soo kulanka Marseille ee hadda sidee xaaladiisu ay tahay inuu markaa kulanka wareega 16 tartanka Champions League kooxdiisu ay ku wajihi doonto Real Madrid macalinka kooxda PSG Unai Emery oo arrimahaasi ka hadli doona ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan kooxda Barcelona saxiixeeda cusub ee Ousmane Dembele waxa markaasi uu ku dhibtoonayaa nolosha garoonka Camp Nou
buluguraan ay ku ciyaarto haddaba caqabadaha xiddigan hortaagan iyo dhibaatooyinka uu wajahayo waxa sababta u ah warbixino ku aadan ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa kulanka axadda Chelsea iyo kooxda Manchester United Old Trafford ay ku ciyaarayaan waa sidee xaaladda labada tababare Antonio Conte iyo Jose Mourinho miyay is salaami doonaan mid kasta markii su'aalahaasi ku saabsan haddii ay iska canqaadayaan labada tababare la weydiiyey waxyaabihii uu ku jawaabay ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan tababaraha kooxda Red Devils Jose Mourinho oo digniin kaba dambaysa siiyey xiddiga Paul Pogba kooxda kulanka Chelsea isagoo sheegay in isagu yahay tababaraha Manchester go'aan kastana uu ka go'ayo isla markaana loo baahan yahay in uu raadsado kalsoonidiisa xiddiga qaab ciyaareedka Diego Maradona ee ka ciyaaray Premier League-na waxaa farta ku fiiqay macalinka Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino Mo Salahna waxaa markaasi la barbardhigay xiddiga kooxda kubadda cagta waa kooxda Liverpool Jurgen Klopp waxa uu diiday in Mo Salah uu ku fiican ee lugta bidix ku ciyaaro kubadda cagta waqtigan waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale xiddigaha lugta bidix ku ciyaaro kuwooda ugu fiican oo macalinka Jarmalka uu soo bandhigay waadan ciyaaraha caafimaadka laga ciyaari doono La Liga oo Barcelona iyo Girona ay ku balansan yihiin halka sidoo kalena Real Madrid iyo Alaves Santiago Bernabeu ay ku wada ciyaari doonaan Premier League kulamadiisa oo Liverpool iyo West Ham ciyaarta caawa dhaxmari doonta ay ugu adag tahay iyo kulamada kale ee dhacaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixino la xiriira marxaladda suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo wararka wargeysyada waaweyn ee qaaradda Yurub maanta oo ay qorayaan ayaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka waxaa qayb ka ah qaybta falanqaynta oo dhageystayaashu aan fikradahooda u soo gudbin doono qaybaha dambe markaan isla soo gaarno waxaan oo farsameynaya Cabdullaahi Cumar Xasan mar kale iyo ciyaaraha dur mudanayaal iyo marweyn waxa ay noo suurta gashay inaynu waraysi la yeelanno orodyahanka caanka ah ee Mo Farah baan ugu horreyn weydiiyey sababta keentay in sannadahanba uu wada urursado dhammaanba biladihii olombikada adduunka oo dhan wuxuuna ku jawaabay anigu hal sano markaan jiray ayaa lay bilaabay caanaha OnePlus ee Ankar ilaa 3 jirkaygii ayaana laygu habayay sababtoo ah waa caano lagu lifaaqay malab soo kuwa daboolkoodu uu jaallaha yahay maaha ha waa ayaga kadibna caanaha Ankar ayaa ii socday gaar ahaan kuwa 900 oo garaama ilaa iyo hadda ma Ankar u badcabtaa aad oo weyn dan caanaha Ankar baa ii wada qaaday caanaha Ankar koriyo sidiisaba ma daalo waana dhadhamada caanaha kaasina wuxuu ahaa matalaya Mo Farah bal markan aan dhammaan bulshada u wada sheego in awoodaha caanaha ay Ankar yihiin shirkaduhuna waa Webi Shabeelle iyada ayaa ku wada baahisa min degmo iyo gobol kasta oo dalkeena ka mid ah xarunteeduna waa Bakaaro Ankar dooxa dadweynaha daryeelka carruurta dumar iyo ragba
wanaagsan idaacadda risaala suuqa kala iibsiga ciyaartooyda inkasta uu xiran yahay haddana waxaa jira kooxo waaweyn oo dalabyo u diraya ciyaartooy ay doonayaan haddaba waxaynu soo gudbin doonaa wargeysyada waaweyn ee kubadda cagta ka faalooday iyo suuqa kala iibsiga sida ay kaga hadleen maanta oo sabdiya wargeyska The Times lagu magacaabo waxa uu leeyahay goolahayaha Real Madrid David De Gea oo 27 waa goolahayaha kooxda Manchester United David De Gea oo 27 sano jira waxa uu qarka u saaran yahay inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxdiisa isagoo saxiixaya heshiis cusub oo uu ku sii joogayo garoonka kooxda Manchester Old Trafford Real Madrid waxay isha ku haysaa ciyaaryahanka garabka ugu ciyaara kooxda Manchester City ee Raheem Sterling oo 23 sano jira kaasi oo aan wada hadal rasmi ah la bilaabin oo kooxda hoggaanka u haysa Premier League sida majalada Daily Mirror ay daabacayso ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba waxa uu dareensan yahay inuu si xun ula dhaqmay Mourinho isla markaana uu doonayo inuu mar kale qiimeeyo sida majalada Mail on Sunday ay daabacayso waxa uu sheegay ciyaaryahanka heerka caalamiga ee reer Faransa inuu dib u soo dhisay kalsoonidii kala dhaxaysay sida majalada The Sun ay ku waramayso Real Madrid waxay qirtay inay diyaar u yihiin iibinta weeraryahanka reer Wales ee Gareth Bale oo 28 sano jira sida majalada Independent ay daabacday maanta Chelsea waxay kormeeraysaa kabtanka Newcastle Jamal Lascelles oo 24 sano jira waxaana laga yaabaa inuu u dhaqaaqo daafacan dhexe xagaagan garoonka Stamford Bridge sida Evening Standard ay daabacayso Juventus waxay heshiis la gaartay daafaca Manchester United ninka reer Talyaani ee Matteo Darmian oo 28 sano jira sida Calcio Marquette lagu daabacay diga Paris Saint-Germain Neymar waxa weli la xiriirinayaa inuu wada hadal qarsoodi la sameynayo madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez sida Dario Gol iyo majalada Star ay daabacayaan ciyaaryahankii hore ee kooxda Sunderland John Kurkov oo 27 sano jirana waxa uu wada hadal kula jira kooxda Bolton sida Sky Sports lagu daabacay kooxda Shiinaha ka dhisan ee Dalian Yiving waxay ku dhowdahay inay la soo siyaxato daafaca West Ham Jose van de Ven oo 34 sano jira ciyaaryahanka garabka ugu ciyaara kooxda Belgiumka Yannick Crespo 24 sano jira ayaa sidoo kale qarka u saaray inuu isagoo ku biiraya kooxda Shiinaha ka dhisan ee Dalian Yonvech lagu magacaabo ayaa loo soo baxay digaan inuu qaadan doono sida Marca ay daabacayso Atletico Madrid ayaa xiiseynaysa inay la soo siyaxato daafaca kooxda waa 19 sano kaasi oo amaah ku jooga kooxda Borussia Mönchengladbach sida Daily Telegraph lagu daabacay Barcelona waxay go'aansatay inay la soo wareegto kabtanka Lyon Nabil Fekir Arsenal ayaa sidoo kale la xiriirinaya sida majalada Sport ee ka soo baxda gobolka Ketaasi waxay ahaayeen wargeysyada iyo wararka xanta oo ay ka qoreen suuqa kala iibsiga maanta oo sabdiya wargeysyada iyo wararka ugu dambeeyay suuqa haddii aan intaasi kaga gudubno oo barnaamijkeenu ku daafurnay markaan waxaynu barnaamijka ciyaarahan aan ku soo gudbin doonaa kulamada waaweyn ee caawa iyo galabta laga ciyaari doono horyaalada Ingiriiska Spain iyo Talyaaniga xagta Ingiriiska ee Premier League Liverpool ayaa ku soo laabanaysa horyaalkan kadib toddoba sano ay martigelinayaan kooxda kubadda cagta ee West Ham Rennes ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku jirtay bilii la soo badiyay laba kamid ah 24 waa iyagoo laga badiyay laba kamid ah 24kii kulan ee ugu dambeeyay tartamadoo dhan waxaana ay laba dhibcood u jiraan kaalinta ciyaarta Anfield 6 maqribnimo ee caawa ayaa la daawan doonaa marxaladda labada koox ay ku jiraan Klopp ayaa dhaawacyo cusub iyadoo laga yaabo inuu isticmaalo shaxda kulankii wareegga 16 Champions League Emre Can ayaa ku soo bilaaban kara inkastoo uu sheegay kulankii kooxdiisu ay wajahday Porto isagoo ganaax ku maqnaa halka Adam Lallana Alex Oxlade-Chamberlain labaduba ay ku soo laaban karaan dhankii hore ugu soo ciyaaray koox waa labada ciyaartooy hore ugu soo ciyaaray kooxda Southampton Virgil van Dijk iyo Dejan Lovren ayaa taasi oo la micnaahay Joel Matip uu ku sii jiri doono kursiga kaydka Moyes wax kooxdiisu inay qabto saxaafadda waxaana la filayaa in wali uu maqnaado daafaca lagu magacaabo Weston Reed kaasi oo qaba xanuun dhanka cunaha Jose van de Ven oo laga yaabo inuu loogu yeero shaxda koobaad ayaa markaasi la xiriirinayaa kooxda Shiinaha ka dhisan waa koox kamid ah kooxaha ka dhisan dalka Shiinaha halka xidiga lagu magacaabo Outher Masuku si toos
ah ugu seegi doono kulanka Liverpool ee caawa sidoo kale Andy Carroll oo qaba dhaawac ayaa seegaya ciyaarta caawa ka dhacaysa Anfield laakiin Manuel Lanzini oo loo arkay beddelka Filipe Coutinho ee kooxda Liverpool ayaa shaki laga qabaa in ciyaarta caawa soo muuqan doono xaqiiqada kulankan Liverpool waxay dhalisay 8 gool labadii kulan ee ugu dambeysay ay ku ciyaareen London Stadium laakiin waxay ku guuldareysteen inay badiyaan saddexdii kulan ee ugu dambeysay Anfield ay booqdeen labada kooxood ayaa ku kulmay 136 jeer tartamadoo dhan iyadoo Liverpool ay badisay 72 kamid ah halka laga badiyay 28 kulan oo kulamadaasi kamid ah aqoolka ah labada kooxna Liverpool waxa uu safan kara golaha Karius daafaciidu Alessandro Arnold Lovren Van Dijk Robertson qadka dhaxana waa Wijnaldum Henderson Emre Can weerarkuna waa Salah Firmino iyo Mane kala Adrian oo golaha Avante iyo Gobana oo daafaca dhaxaa Crosswell iyadoo qadka dhexe Kyoto Nobel Antonio iyo Joao Maria ay ciyaari doonaan weerarkuna waa Hernandez Jirito iyo Arnautovic ninka lagu magacaabo horyaalka Ingiriiska ee Premier League kulamo kale oo waaweyn lagama ciyaari doono iyadoo kulanku ugu adag Brito ahada kooxaha Manchester United iyo Chelsea Old Trafford ay ku wada ciyaari doonaan kulamada kale ayaa sidoo kale la ciyaari doona Brito iyadoo Chelsea iyo Manchester ciyaartooydu ay tahay mid ugu adag toddobaadkan Manchester City Arsenalna tartanka Carabao Cup finaalkiisa ay garoonka Wembley habeenka Axadda isku arki doonaan horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga ayaa caawa kulamo ka tirsan la ciyaari doona Real Madrid ayaana kooxda Alaves martiqaadi doonta Cristiano Ronaldo ayaa lagu wadaa inuu ku laabto safka Real Madrid iyadoo Zinedine Zidane ay martigelin doonto kooxdiisa Alaves garoonka Santiago Bernabeu ciyaar ka dhacaysa horyaalka Real nasiyo kulanka iyadoo Madrid garaaceen kooxda Leganes xidiga lagu Sergio Ramos iyo dhaliyo goolasha laakiin Suzuki kooxdiisu waxay doonaysaa inay sii wadato qaab ciyaareedkooda ayaan caawa kooxda Deportivo Alaves ciyaarta ka dhacaysa Santiago Bernabeu waxaa la daawan doonaa saacadu markay tahay 6 maqribnimo iyo qadar 15 daqiiqo marxaladda labada koox ay ku jiraan daafaca lagu magacaabo Qusas Baleekho ayaa wali dhaawac ku maqan halka ciyaaryahanka qadka dhexe Toni Kroos uu isna dhaawac jiribka uu soo gaaray kulankii Paris Saint-Germain uu la maqan yahay Marcelo ayaa sidoo kale seegaya kulankan kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray kulankii Betis halka Luka Modric wali dhaawac muruqa uu qabo Sergio Ramos ayaa ganaax ku maqan kadib markii uu qaatay jaalihiisii shanaad ee xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga kulankii Leganes kabtanka Real Madrid Ramos ayaa noqday taariikhda xidig ugu jaala qaadashada badan La Liga kadib markii kulankaasi loo taagay jaalihiisii 163 ee kubadda cagta Spain Barcelona Munir Al-Haddadi Mohamed ayaa ganaax ku seegaya kulanka caawa Santiago Bernabeu halka weeryahanka kale ee Hector Hernandez iyo daafaca midig ee lagu magacaabo Carlos Vagari labaduba ay shaki ka qabaan kooxda kubadda cagta ee Deportivo Alaves xaqiiqada kulankan Alaves ayaa ku jirta qaab ciyaareed cajiib tan iyo markii Albert waa ninka lagu magacaabo Alfredo uu tababaro u noqday isagoo guuleystay 22 dhibcood inuu helo waxaana uu 10 dhibcood ka soo sare kacay booska loogu laabto horyaalka heerka labaad ee Spain Real Madrid ayaan laga badin 11 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ka hor yimaadeen kooxda Deportivo Alaves 10 guul iyo hal barbara ayna heleen iyagoo badiyay 8 kulan ee ugu dambeysay si xiriir Alaves ayaa badisay 3 kulan ee ugu dambeysay La Liga laakiin waligeed ma aysan badin 4 kulan oo isku xiga tartamadoo dhan safafka macquulka ahna kooxda martida loo yahay Real Madrid Navas Carvajal Nacho Varane Hernandez Casemiro Vasquez Kovacic ninka lagu magacaabo Isco Bale iyo Ronaldo wuxuu ciyaari kara kooxda Alavesna waa golahayaha lagu magacaabo Bechkio Elia Duare waa Nungerdia Martinez Bardeza Vina Garcia Ibeya Bojan iyo Guadi ayaa 6 maqribnimo iyo qadar 15 daqiiqo ayaana ciyaartan laga daawan doonaa garoonka Santiago Bernabeu يا
حمدي حوق سوق عصو حابس أورد كأن حلية قرني intaan xaf dhihineen orodna xaabsan ma dad baa ku xiran xaliyahaad ku dhawaaqday kan warrabo xiise waan u qabay xaliye ii sheeg seedahaad ka xishootii hilibkaad iska xortay kuu diida xanuunka si aad ugu xirto xoog ugu rugto xaliyada jal klinik baa xamdiye ka xige iscaadiri dacdiisa waa xaajan sugaayoon xilli walba filayay xaliye ila gaar hasha afku xanuuniyo waa u dhamaatay oo intii ilinka wada xortay xabad aan ku harin xaliya u diyaara oo dhakhtar la soo xulo loogu xishay aqoonta Suuriya ka soo xirxirto xamar kula joogay xaliye kaala ilaa xaliye dental clinic waxa uu ku qabanayaa adeegyada daweynta afka iyo ciribka buuxinta ilkaha gelinta ilkaha dhaqidda ilkaha qurxinta ilkaha xirista ilkaha balaastika beeridda ilkaha cadaynta ilkaha dhuuxdilidda ilkaha xaliye qalabka uu ku shaqeeyana waa computerized kulligood wada digital waxaana ka howlgala dhakhtar Suuriyaan ah oo qabiir ku ah daweynta iyo qurxinta afka iyo ilkaha ilkihii dhaadheer dib baa loo simaya afkaaga quruxdiisa xaliye xalinaaye adakaala xabdhaho bal hadaa waxa uu ku yaala wadada makaal mukarrama ka soo horjeedka hotel dayax daarta Cusmaan Axmed Rooble eber lixal 78 71 eber lixal 2 94 sideetan iyo lix waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha Barcelona ayaa ku soo laabatay horyaalka La Liga kadib markii ay barbaro adag la gashay Chelsea iyo kulan Champions League ka tirsan talaadadii Clasico Bridge barbaro gool iyadoo Lionel Messi uu dhaliyo goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda dib Luis Apollo Grana ayaa haatan dib ugu soo laabanaysa horyaalka Primera Division iyagoo kooxda dhibka badan ee Girona kula ciyaaraya garoonka Camp Nou ciyaarta caawa ka dhacaysa garoonka Barcelona waxaa la daawan doonaa 10 fiidnimo iyo qadar 45 daqiiqo marxaladda labada koox ay ku jiraan Thomas Vermaelen ayaa markale diyaar daafac reer Belgium ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro kulanka caawa tababaraha Barcelona Valverde ayaa haysta koox buuxda oo uu xulan karo kulanka caawa ee Camp Nou Nelson Semedo oo ganax ku seegay kulankii Champions League kooxdiisu ay la ciyaareen Chelsea ayaa la heli karaa halka Girona xilli ciyaareed weyn ay ku riyaaqayaan markoodii ugu horeysay oo ay ka ciyaarayaan horyaalka kubadda cagta Ingiriiska waa horyaalka kubadda cagta Spain La Liga kooxdu uu hogaamiyo Paul Magin ayaa 2 jeer barbaro ku celisay Atletico Madrid halka sidoo kale garoonka Santiago Bernabeu ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta Real Madrid xilli ciyaareedkan daafac lagu magacaabo Jose Reymonda ayaa dhaawacan halka daafaca bidix ee Jonathan Mojia shaki uu ku jiro kulanka caawa Barcelona kooxdiisu ay u safrayso xaqiiqada ciyaartan kulankii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan waxa uu ahaa kulankii kooxood ay ku kulmeen La Liga iyadoo Barcelona ay 3 waxba ku badisay garoonka Montilivi lagu magacaabo Barcelona ayaan laga badin 19 kulan oo ka tirsan kulamada horyaalka La Liga waana heerkoodii ugu fiicnaa tan iyo 12 February 2009 kaliya hal gool oo kamid ah 13 gool ee ugu dambeeyay Barcelona ka dhalisay La Liga waxay yimaadeen qaybta hore ee ciyaarta Luis Suarez ayaana goolkaasi kooxda ayba ka dhaliyay safafka macquulka ay noqon kartana Barcelona 4-4-2 ay ku ciyaari kartaa waana Ter Stegen Semedo BK Umtiti Alba qadka dhaxane Dembele Rakitic Busquets iyo Coutinho weerarkuna Messi iyo Suarez Girona oo 3-4-3 ku ciyaari kartana goolhaya Bona ayaa qaban kara goosha Ramalho oo daaficida Bernardo Juimbi iyo xidiga Benitez qadka dhaxana waa Bres Bonis Garnial Mojica Portua iyo Santune weerarkuna waa Borja Garcia ciyaaryahanka lagu magacaabo kulankan La Liga ka tirsan ee Girona iyo Barcelona oo gobolka Catalan ka wada dhisan markay tahay garoonka ku yaala gobolka Catalan ee Camp Nou ayaa lagu ciyaar
waa hagaag warbixinada ciyaaraha ayaynu gudageli doonaa markaan iyadoo falanqaynta kulamada aynu intaa kaga gudbayno tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp waxa uu ku adkaysanayaa in Mohamed Salah uu haysto lugta bidix ee ugu fiican isagoo sheegay in Lionel Messi aan la iloobi karin marnaba Salah ayaa qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay Liverpool isagoo dhaliyay 30 gool tartamadoo dhan tan iyo markii uu yimid garoonka kooxda kubadda cagta ee Liverpool xagaagan 22 gool uu ka dhaliyay Premier League Salah 19 kamid ah lugtiisa bidix ayuu u isticmaalay 2 kamid ah lugtiisa midig halka goolka kalena madaxiisa uu ku dhaliyay mar la weydiiyay haddii xidiga reer Masar yahay kan ugu fiican ciyaartoyda lugta bidix ku ciyaarta macalinka Liverpool Klopp ayaa diiday inuu meesha ka saaro xidiga Barcelona Lionel Messi sinaba uu loobin ayuu yiri tababaraha Jarmalka oo la hadlayay saxaafadda koor kulanka kooxdiisu wajahaysa caawa West Ham ma ahan kan ugu fiican adduunka laakiin waa uu wanaagsan yahay Salah ayuu hadalkiisa ku daray macalinka Redis Salah ayaa fursad u haystay inuu sii wato qaab ciyaareedkiisa sare marka Liverpool ay martigelinaysa caawa kooxda West Ham kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League Salah ayaa xilli ciyaareedkiisa ugu horeeya oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa uu ka sameynayaa waxyaabaha la aamini karin waxaana gool hadii uu caawa West Ham ka dhaliyo rikoorka gool uu ku haysto xidiga Luis Suarez Salaam Somali Bank yaab iyo dhakafaar dhaqaalaha dhibaa iga haysta hantidaan dhab u haystay qaar baan dhul ku duugay aboor baa ka dhamaystay qaar baan baqiyaan u dhiibaba ku dheeldheel oo maba hayo intaysan yaa ila taliya tala anaa kuu hayee dhulan ku duugay miya baqaaraan dhigo waa lagu dheelay kaas waa Salaam Somali Bank baa soo daahiray xoolaha Somali kaaga dhaxalgal weeye runtii dhacsanayne waa inaan u dhaqaaqo hantidayda u dhiibto Salaam Somali Bank yaa amaanada Somali Bank dhaqsiyaa Salaam Somali Bank kii wax dhaqaalaysan rabow dhaqso oo hadda aad Salaam Somali Bank tababare Mauricio Pochettino ayaa isbarbar dhigay ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxdiisa Moussa Dembele iyo halyeega qaranka Argentina Diego Armando Maradona waxa uu hore u sheegay inuu yahay kubad qaabeeye xirfad leh kaasi oo wax badan u qaban kara kooxdiisa tababaraha Spurs oo ka hadlaya awoodda xidiga reer Belgium waxaan aaminsanahay inuu yahay kan ugu fiican kadib Ronaldinho Maradona JJ Okaja kuwaasi oo aan nasiib u yeeshay inaan la ciyaaro ayuu yiri macalinka Spurs aniga ahaan waa mid kamid ah ciyaartoyda aan rumaysan karin haatan waxa uu ku jiraa xilli ciyaareed cajiib ah waxa uu qalmaa in la barbardhigo dadka ugu sareeya kubadda cagta soo maray ayuu yiri tababaraha Tottenham Hotspur oo ku dagaalamaya afarta sare ee Premier League tababaraha reer Argentina ayaa haysta koox buuxda oo uu xulan karo kulanka Crystal Palace iyadoo Toby Alderweireld uu ku soo laabtay tababarka buuxa ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur dhinaca kalena xidiga Paul Pogba iyo tababare Jose Mourinho maalmihii la soo dhaafay xiriirkooda ma wanaagsanayn haddaba macalinka Portugal ayaa digniin kama dambaysa waxa uu siiyey ciyaaryahanka reer Faransi ee kooxda Manchester United Jose ayaa ugu digay Paul Pogba inuu sameeyo leen weyn looga baahan yahay inuu kasbado kalsoonidiisa Mourinho ayaa lagu wadaa inuu dib ugu yeero Pogba line-upka kooxdiisa kulanka Manchester ay kula ciyaaraysa Chelsea garoonka Old Trafford axadda laakiin waxa uu ugu baaqay xidiga 89 milyan ku fadhiya inuu kasbado kalsoonida kooxda waxa uu isticmaalay ciyaaryahan da'yar oo lagu magacaabay Scott McTominay kulamadii ugu dambeeyay kooxda Manchester Mourinho ayaa intaan la weydiiyay waxa uu yiri Scott
waxa uu kasbaday kalsoonideeda tan iyo maalintii ugu horreysay uu ka mid noqday kooxda koobaad wax badan ayaa laga filayaa ayuu yiri tababaraha kooxda Manchester United Mourinho ayaa sameeyay go'aano uu kursiga kaydka ku dhigayo Pogba inkastoo qaab ciyaareed wanaagsan uu sameeyay kulankii ugu dambeeyay kooxdiisu wajahday Sheffield markaasi oo lagu bedelay xidiga dhaawacmay Andrea Herrera waxa uu lahaa u fiican Pogba baysa ayuu hadalkiisa raaciyay Mourinho waxa uu si fiican ugu jawaab celiyay qaab ciyaareedkiisii ugu xumaa soo bandhigay kulamadii la soo dhaafay ciyaartii Sheffield mar waliba way adag tahay inaad ka soo baxdo kursiga kaydka laakiin haatan Pogba waxa uu muujinayaa soo laabasho weyn ciyaartooyda qaar waxay ku qaadan kartaa 5 daqiiqo inay diyaar u noqdaan ciyaarta laakiin isagu waxay ku qaadatay 10 ilbiriqsi si uu u caawiyo kooxdeena ayuu yiri tababaraha kooxda Mourinho dhinaca kalena iyadoo kulan ka tirsan Premier League axad uu dhaxmari doono kooxaha Chelsea iyo Manchester United labadooda tababare ayaa si weyn looga faaloonaya haddii ay isgacan qaadi doonaan ciyaartan ka dhixi doonta Gida Old Trafford tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Antonio Conte ayaa wariyaasha ku wargeliyay jimcihii inaysan weydiin karin su'aal ku aadan haddii uu salaami doono tababaraha Manchester Jose Mourinho oo kulanka isku wajahayaan labada macallin axada Conte ayaa diiday in lagu soo diro su'aalaha la weydiinayay koox ciyaartan wax ku saabsan haddii uu salaamayo Jose Mourinho marka labada kooxood Chelsea iyo Manchester United ay ku kulmayaan Old Trafford waa xilli hore labadeena ma ogin waxa dhici Chelsea ma ahan wax saxa ma xiiseynayo inaan ka hadlo mowduucan ayuu hadalkiisa ku daray Conte oo saxafiyiinta kaga jawaabaya arrimahan jariirada lagu magacaabo Daily Star waxay ku warbixisay in tababaraha kooxda Manchester Jose Mourinho kooxda Chelsea Antonio Conte haddii isgacan qaadi doonaan oo kulanka axad iyo haddii kale markaasi la ogaan doono waqti hore tababaraha reer Portugal Jose ayaa jariiradan waxay warinaysaa inuu meel iska dhigi doono isla markaana uu go'aansaday inuu kulanka axadda gacan qaado oo uu salaamo dhigiisa Antonio Conte inkastoo labada tababare xaaladoodu meel xun ay isla gaartay dhowr jeerna hawada isku marinayeen hadallo kulul oo ay markaasi midba midka kale uu ku dhaleecaynayo ayaa markaasi hadda waxaa soo baxaya in labada tababare midkood uusan ku qanacsanayn marxaladda taagan Antonio Conte waxa uu hadda si maldahan u sheegayaa inuusan raali ka noqon doonin gacan qaad uu la sameeyo macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester Jose Mourinho laakiin majalada Daily Star waxay warinaysaa maanta in tababare Special One uu isgaalkii labada dhinac isla markaana diyaar u yahay inuu gacan qaado Antonio Conte iyo kooxdiisu markay soo booqanayaan garoonka Old Trafford ee ku yaala magaalada Manchester labada kooxood kulan ka tirsan Premier League ay wada ciyaari doonaan iyadoo booska labaad laakiin tababaraha Manchester Jose waxa uu ka sheegay shirkiisii jaraa'id ee ku horeeyay ciyaartan in dhammaan dhaawacyada ciyaartooyda muhiimka ah ka qabay ay dib kaga soo laabteen waxaana uu rajeynayaa ciyaartan in Paul Pogba dib uu helo macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte oo ka hadlaya xaaladda kooxdiisa waxa uu sheegay in isbedel weyn ay u baahan yihiin ciyaartan waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay inuu arki doono Pogba oo mar kale kursiga kaydka fadhiyo kulan weyn oo kooxda Manchester la ciyaaraysa Chelsea si aad u hesho wararka degdega ee Risaala soo booqo radiorisala.com kadib gambaleelka guduudan ee ka soo muuqanaya qaybta hoose ee website-ka waxaad telefoonkaaga gacanta ku heli doontaa wararkii ugu dambeeyay dal iyo dibad waliba si lacag la'aan ah sidoo kale haddii aad isticmaalayso kombiyuutar oo aad dhahato subscribe webkeena adigoo page kale oo kombiyuutarkaaga uu kuu furan yahay ayay kuu soo dhacayaan wararka lagu soo daabaco radiorisala.com saaxiibadeena ku xiran website-keena waxaan ugu bishaaraynaynaa in isbedelo ballaaran aan ku sameynay webka oo waxyaabo badan aan ku soo kordhinay kuwaasi oo aad ka arki karto haddii aad soo booqdo
وهجاج برامج كعيارة إذا عد رسالة مقدشة مقليسان qaybta dhaxan isla soo gaarnay koodii duhurnimo saac falanqayntan guurdo u gudbi doonaa laakiin markaan warbixinada ciyaaraha ugu dambeeyaan soo qabto Paris Saint-Germain waxay wajahaysaa ka tirsan Real Sociedad iyadoo walwal ka qabta taamahaanshiyaha Neymar tababaraha kooxdan Unai Emery ayaana qiray jimcihii inuusan ahayn dhakhtar laakiin waa arki karo in ciyaaryahanka reer Brazil uu yahay mid xanuunsanaya maahan inuu ka dhex muuqan doono kooxda Paris kulanka Martial ayuu yiri tababarihii hore ee kooxda Sevilla oo isha ku haya xaaladda xidigiisa muhiimka ah kor kulanka lugta labaad ee wareegga 16 tartanka Champions League kooxdiisu ku wajahaysa Real Madrid mahi dhakhtarka kooxda ayaa ii sheegay in Neymar uu xanuunsan yahay ayuu yiri tababaraha PSG waxaan rajaynaynaa in uu fiicnaan doono sabtida ilaa iyo hadda ayuu hadalkiisa ku daray Unai Emery ma qabo wax dhaawaca waxa uu dareemayaa calool xanuun iyo qandho sida Lassana Diarra oo kale ayuu hadalkiisa ku daray hogaamiyaha PSG Martial ayaa booqanaysa back differences ahada baritaha iyo ogan tahay ku ciyaarno guud ciyaartoy reemayaan wax aan joogno back differences ayuu yiri macalinka lagu magacaabo Unai Emery ee hogaamiye kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Paris ayaa u baahan inay lugta labaad samayso guul la yaab leh si ay ugu soo baxdo marxaladda quarterfinals dhageystayaashana fursadaan u siin doono la qabsiga xidigan iyo waliba waxyaabaha sababta u ah inuu dib u dhac ay ku yimaado mise xirfadwacyo iyo dib xidig u qalmeen oo u ciyaaro Barcelona ma san noqon karaa mid taageerayaasha ay ku iloobaan Neymaha soo dil dhageystayaashana isla wada falanqayn doona laakiin aan soo qabto dhowr qodob oo laga yiri la qabsi la'aantiisa kooxda Blaugrana Ousmane Dembele ilaa iyo haatan ma sameyn rajo weyn oo laga qabay taasi oo ahayd Neymar oo ku biiray Paris Saint-Germain tababaraheena istinayaan taageerayaasha kooxda dhalinyaro ciise oo kala ahna kaliya 20 boqolkiiba ayaa la qabsato kooxahooda way adag tahay inuu si ficil ahaan ah markaas uu la qabsado koox sida warbixin yiri ma aha dad wanaagsan waa ciyaaryahan u baahan inuu si fiican u diyaar garoobo wuxuu sidoo kale u baahan yahay nasiino badan oo dhanka maskaxiyan ah ayaa sidoo kale warbixinta lagu yiri caqabadahan oo dhan ayaa keenaya in dib u dhac Dembele ee kooxda Barcelona Dembele oo hore Borussia Dortmund wacdara ka dhigay waxaa noloshiisa Barcelona ay ku bilaabatay si gaabisa tan iyo markii dhaawac uu soo gaaray bishii Janaayo ee sanad waa markaasi dhaawac soo laabtay bishii Janaayo sanadkan waxaana xidiga loo arkaa mid waqtigan aanan la qabsan karin falsafada uu isticmaalo tababaraha Barcelona Ernesto Valverde hadaba qaybaha dan barnaamijkan isla soo gaarnay ma Barcelona ayaan markaasi xidigan ka faa'iideysan karin awoodiisa ma xidiga ku soo qaldamay Camp Nou sidee ayuu ku noqon karaa bedel Ousmane Dembele ma tababaraha shaxdiisa ayuusan fahmin ma ciyaartoyda kooxda ayuusan la qabsan karin guud ahaan arrimahaas dhageystayaashan wada falanqayn doonaa oo alaaba qodob barnaamijka falanqaynta u baahan miiska soo saaro qofka ugu horeeya telefoon ku jira qaybta falanqaynta Hello dhageystaha ugu horeeya hello isma maqalno dhageystahaas hello soo dhaw magacaaga halka joogto ina walaalkay Xasan Cabdi Axmed adiga farsamayaqaanka baaweynta ciyaaraha reer wanaagsan waan
aad baad u mahadsan tahay magacayguna waa Queen Diamond degmadeeda Hilwaa gaaraan xaafadeeda baaxadda leh suuqa xoolaha horta caqabada haysato Usmani Dembele boqolkiiba boqolka uu ka qabeeyay inuu soo aado horyaalka Spain ciyaartooyda ka imaatay Faransiiska Shahroz markii lagu sheegtay 20% ayay ka qabsadaan macalinkan uu fahmay shaxda macquulka oo isticmaal macalinkani Al-Nassr Ferdo ma Barcelona ku soo qaldamo marka sidaas ma aaminsan tahay mise lama siina fursad uu isku muujiyo in badan horta muusa siinin fursad badan oo ninkan isku soo muujiyo midda ka koowaad oo ka horeysan waxay tahay ma uu qalmo inuu soo aado horyaalka Spain because ma la qabsan karaan ciyaartooyda Faransiiska ka imaatay xaggooda soona aadaan Spain ma ay la qabsan kartaa saawir xidho oo aad ugu soo sheegtay aad baad u mahadsan tahay qofka xiga fursadda siin doona iyadoo ciyaartooyda dhalinyarada ah guud ahaan kubadda cagta la leeyahay marka tay ahaan laga hadlayo awoodda kooxay ku biiraan la qabsadaan kaliya 20% oo faham badan u baahan yihiin marka nooca ama ciyaaryahanku yahay Usman Dembele daadiisa oo kale Hello soo dhaw magacaaga saaxiib secretary radio waxay leeyahay door wanaagsan magacayguna waa Ibrahim Maxamuud Ibrahim Beene waxaan joogaa degmada Kaaran Ibrahim Beene soo dhaw haddaan ka hadlo kulamada maanta jira kooxda Liverpool kulama kama hadlayna saaxiib inaan isla soconaa fiican kulama kama hadlayna waxaan falanqeynaynaa xaaladda Usman Dembele iyo kooxda Barcelona iyo xidigan sida kooxdan uu la qabsan waayay waxyaabaha sababta u ah intaas kaliya aan falanqeynaynaa kulamada halkooda noo yaalan okay kooxda Real Madrid sama saaxiib inaadan la socon barnaamijkaad moodaan ugu soo laabo oon ku cudur daaranaya qofka xigaan fursad siiyo hello dhageystaha waa inuu diyaarsan yahay barnaamijka qaybgalkiisa haddii kalena uusan waqti naga lumin qofka xiga hello waan kasii gudbaynaa qofkaasna haddii uu seexdo qofka xiga hello laba wicitaan uu leeyahay qofka markuuna soo wacayo inaan u yeerno haddii uuna maqlo waa inuu noo jawaaba haddii kalena waan kasii gudbaynaa si dhegeystayaal badan fursadaan hello waayahay dhegeystaha xigaan usii gudba hello waayahay kaasina isma maqlin haddii cilada dhanka teleefanada ay tahay iyo haddii dhegeystayaasha dhankooda ay tahay waan hubin doonaa qofka xiga hello waayahay qofkaasina telefoonka ka xumaaday qaybaha dambe barnaamijka ciyaaraha idaacadda Risaale Muqdisho ku guda jirnaa dhageystayaasha waxaan wada falanqeynaynaa xaaladda Usman Dembele iyo kooxda Barcelona la qabsiga xidigan iyo waxyaabaha sababta u ah in uu shaxda Ernesto Valverde gabi labadii kulan ee ugu dambeeyay xitaa daqiiqad uu ku ciyaaraan la siin hello soo dhaw magacaaga Xasan oo salaamaya waan ka qaaday magaca Amir Stephen degmada magaalada Muqdisho عامر سودو gudagal barnaamijka diyaadna la adiyaan fikrigii ka dhigto qodobka dooda miiska saaran Dembele waa nin kamid ah adiga Barcelona muddo in badan adiga tuma sano soo socda waxa qoman in uu tan oo naadiga kula qabto hadan si heeray oo dhibaato ku keenay mid kan la haytay inta uu dhaawac ku maqnaya Alcácer iyo Suarez intii hore sidameen marka adiga rabo plan waxay ka qabtaa dhankaas mid kan la haytay sababta loo dhahay inuu kubada adiga oo qabto hataa kubada la dhacayo waxay tahay naadiga jawigeeda oo qabsan iyo marka qaar hataa hadii aad taagto garoonka tagaashaniyo ay soo galaan garoonka dibinadu weyn ku mid yahay mid ka lin kara sababtoo ah taageerayaasha jawigooda xamaasadooda iyo dhaqdhaqaaqooda ayuu la qabsan leeyahay aan dhigi karaa sababtoo la dhacana mid saacad adiga la garoona aad baad u mahadsantahay dhegeystaha xiga telefoonka ku jira hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع عليك جوسان حسن وسلام عليك دغستياشا dhamaan bah idaacada Risaale dhamaatiin duruur wanaagsan oo waxan حسن برنامجka dib gudaha u galo maanta falanqeynta waxa maleeyaa inay tahay Usman Dembele kaas oo ciyaar kooxda Barcelona la qabsi la'aanta waxa aaminsan xasro xidigan waa xidig aad u weyn
waa qaali ugu fadhiyo kooxda Barcelona marka aniga waxa aaminsanaa Usmaan Dembele inuu la qabto kooxda Bulgaariya inay sabab tahay waxayna haray door wanaagsan waa maasan tahay qaybaha dambe barnaamijka ciyaaraha muqdina kulanada Yurub laga ciyaari doona caawa saacadaha ay soo dhici doonaan haddii aan dhageystayaasha u dul maro oo kulamada ugu adag waa markaasi kulanka West Ham iyo kooxda Liverpool 6 maqribnimo Anfield lagu daawan doonaa Spain kulamadiisa ugu adag ee caawa la ciyaari doonana oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Deportivo Alaves 6 maqribnimo iyo 15 daqiiqo la daawan doona halka ciyaarta Barcelona iyo kooxda kubadda cagta ee waa Girona la daawan kay tahay 10 fiidnimo iyo 45 daqiiqo dhanka dhageystayaasha Facebook fikradooda ku soo dhiibtaan markaan u gudbi doona dhageystaan waxa uu leeyahay Idris Cabdullaahi magacaygu waa Idris waxaan joogaa Yaaqshabayn Dembele fiican uu ku ciyaaro keenin kooxda Barcelona Jabro Muxdiin Cali dhageystaha Facebook ku soo gala duur wanaagsan waa markaasi asxaabta kale Muxdiin Greek Dalmar Cali DJ Jabro waxaan joognaa degmada Yaaqshid gaar ahaan xaafadda Tokyo haddii aan ugu dogalna fikirkeena saaxiib marka aan fiirino qaab ciyaareedka Usmaan Dembele iyo Barcelona ma ahan mid isku dhow taas ayaana sabab ama sababi karta qaab ciyaareedkiisa hoose maasan saaxiib Assalaamu calaykum markaasi waa asxaabta kale aan kala harin ayuu leeyahay Saxardiid Hazard iyo Bare Ozil waxaan joognaa degmada warta nabadda gaar ahaan haddii isku darso waxay leeyihiin Dembele waa xidig jecel inuu kubadda la xawaareeyo marka ilama ahan in uu kubadaha Barcelona oo ku dhisan tiki-taka la qabsan karo mana aaminsanin inuu u diyaarsan yahay arrintaas ay maasantiin asxaabtaas fikradoodana la wadaagay wicitaanka halo soo dhow saaxiib haddii aadna maqasho codka sare u qaad magacaaga halkaa joogto noo sheeg waan ku salaam xasan mar kale magacaygu waa Ibrahim Beena waxaan joogaa degmada Kaaran gudogal saaxiib barnaamijka haddii aad la socotay haddaan ka hadlo qodobka dooda ee ku aadan Dembele iyo kooxda Barcelona sidaan ognahay kooxda Barcelona waa koox tiki-taka ciyaarta ninkan la yiraahdo Dembele macnaha waxa waa goonigiisa iyo gooni oo gabis badan waay marka labadaasi oo isku timaada waxay sababaysaa inuu macnaha la qabsan waayo kooxda Barcelona marka kooxda Barcelona uu ku soo qaldamay miyaad aaminsan tahay mise in fursad la siiyo oo wiiraan uu la qabsaday ahayd kubaddan kooxda ay ciyaarto Dembele horta inuu la qabsado kooxda Barcelona waqti ay ku qaadanaysaa wiiraan hal sil ciyaarada ma laba ciyaaraad inuu meesha joogo kadib ayuu fahmi karaa qaab ciyaareedka kooxda Barcelona marka Dembele waxyaabaha macnaha maahan asiga macnaha xidig xun macnaha xidig oo haddaan dhahayno macnaha waa fasilma maaha ay Beena waa maasanta laakiin qaab ciyaareedka macnaha la qabsan lahayaa oo kaliya waa maasanta Beena qofka xiga doonaya inuu falanqaynta nagala qayb galo qaybaha dambe barnaamijka ciyaaraha idaacadda Risaalan ku guda jiraan halo soo dhow walaal magacaaga halkaa joogto halo waan ku maqlaa magacaaga halkaa joogto magacaygu waa Cabdisaaq Karaamo oo jooga Yaaqshid khaasan xaafadda Toogiil Cabdisaaq Karaamo gudogal barnaamijka barnaamijka daan gudagalo ninkan Usmaan Dembele meelahan inuu la qabsan doono Barcelona waxaa jira dhaawacyo zaid ayaa mana u diyaarsan inuu u ciyaaranayo Barcelona dhawacyada marka laga soo tago isagu ma yahay xidig la qabsan kara awoodda iyo kubadaha ay ciyaarto kooxdan ayaantii horta Usmaan Dembele waxaa u aaminsan inuu dhaawacyada haddii laga soo gudbo inuu u diyaarsanay bal inuu ciyaari karo Barcelona aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum duur wanaagsan magacaygu waa Samir Jiya waxaan joogaa degmada Yaaqshid gaar ahaan Tokyo Xasan oo Dembele kooxda ayaaba ka weyn dad badan sidaas halo xasan adiga farsamayaqaanka saaxiibada sportiska Risala ku xiran dhammaantii waxaad leeyahay duur wanaagsan oo xasan aad u mahadsan tahay saacadde degmada Kaaran fartamaha burka Tiko kala socdo waad ayay gudagal la socdo aad u mahadsan tahay falaqeynta saaran Usmaan Dembele inuu ku soo fiiro halkanay mata shaxdiisa waxyaabahaas ay qodobka ku saabsan yahay waa la socday ani aadteeda waxaan aaminsanahay horta naadigan inuu ku soo fiiro ma qaltaneen laakiin xitikan in fursad la sii waayey oo waqtigiisa la sii waayey wagtahay sababta ciyaaryahankan xitig aad u taayar waayo ayaan aaminsanahay
intii kan markuu taayir yahay eedato macalinka fursadkii oo dhiirigeliyo oo mar walba ciyaar oo kulan walba dheelayaan oo iyo waxaan aaminsanahay ciyaaryahankan inuu soo shaaci karo laakiin ciyaaryahankii waa cusub yahay haddii la keeno oo waqti la siinin fursadna la siinin karoonkana hoona la gelin waxaan aaminsanahay kubadiisana hoose u dhexaysaa meeshaasna wuxuu ka qaadayaan aaminsanahay niyadjab uu ka qaadaya marka dhibka jiraayaa ciyaaryahankan Barcelona inuu ciyaar u jeclay laakiin macalinka laga heestaa sababtoo ciyaaryahankan haddii fursad la siilahay waqti la siilahay jaanisna la siilahay inuu la qabsanayaan aaminsanahay mar kale waxaan ku leeyahay suur wanaagsan sano wacan dhegeystaha xiga hallo hallo soo dhow magacaaga saaxiib waa maxamuud oo jooga holwadaag maxamuud ayaa falanqaynta nagala qayb gal waxaan ka hadlaynaa waa Barcelona Ousmane Dembele xidigan Ousmane Dembele waa xidig horta aad tayo u leh balse waxaan aaminsanahay inay ku qaldameen kooxda Barcelona sababtoo ah xidig waa xidig tayadiisa dhanka miisaaniyadda ay culayskiisa uu aad u yaryahay dhanka kalena dhaawacdiisa ay tira badan yihiin tababaraha falsafadiisa ka badan oo xidig inta badan baalka Messi ka ciyaarana waaye marka fursado uu heli karo inay yar yihiin aad adigu qabtaa ya fursado uu kooxda Barcelona ka heli karo aad u yar yihiin aad leedahay fursado uu heli karo xidiga ma aan xitaa xidig buuxin kara sida hadda muuqato aad u maasan tahay saaxiib Ousmane Dembele oo 15 bishii May 1997 dhashay waa xidig dhalinyaro ah oo kooxda Barcelona garabka kaga ciyaara keliyana waa 20 sano jir kaasi oo wax badan taageerayaasha Blaugrana ay ka sugayaan waxa uu ku dhashay halka lagu magacaabo Vernon oo Faransiiska waxaana markaasi la sheegay inuu ka mid yahay ciyaartoyda garabka weerar ee ugu fiican kubadda cagta waayihiisii kooxda Borussia Dortmund waxa uu soo ciyaaray kubadda cagta uu ka soo bilaabay 2004 ilaa 2009 inuu ku sugnaa kooxda dhalinyarada ah ee Madrid Erevakista lagu magacaabo sidoo kale 2009-2010 waxa uu u ciyaaray kooxda koobaad ee Erevakis lagu magacaabo Rennes oo Faransiis ayuu u gudbay 2010 ilaa 2015 ayuu ku sugnaa halkaasi oo horumarin badan uu ka sameeyay 2015 kooxda Jarmalka ee Borussia Dortmund ayuu u dhaqaaqay halkaasi oo Barcelona uu kaga soo biiray Blaugrana waxa uu saftay 5 kulan tan iyo 2017 oo kooxda uu ku biiray wali wax gool ma uusan dhalin kooxdan waana mid ka mid ah ciyaartoyda sida weyn qaaliga koox in isagoo ku soo biiray sanad ka hor kaliya 5 kulan uu saftay wax gool uusan dhalin qiimo lacageed 100 iyo dhowr markaasi ku fadhiyana waa wax si weyn markaasi looga hadlayo labadii kulan ay ugu dambeeyeen xitaa daqiiqad ma uusan siin tababare Ernesto Valverde isagoo kursiga kaydka ku dhameystay qofka ugu dambeeya falanqaynta hallo soo dhowral magacaaga halka joogto dhawaay aad iyo aad xasan adii dhammaan dhegeystayaasha ku xiran barnaamijka ciyaaraha risaalo magacaada ku raac waa Qaasim Macalin oo joogo Yaaqshid Gaaraan Tokyo haddii aan gudu galo barnaamijka waqtiga kugu yar waxaan u sababi karaa la qabtilaanta Ousmane Dembele waxaan isleeyahay yar ku farbadan aan siin kulli haddii jaanis rasiyo Ousmane Dembele waxa uu kamid yahay horumar aad u wanaagsan adii dhammaan dhegeystayaasha markooda waxaa leeyahay door wanaagsan aad baad u mahadsantahay Ousmane Dembele sidoo kale qaranka Faransiiska 7 jeer ayuu saftay hal gool ayuu dhalay Borussia Dortmund 32 kulan 6 gool ayuu dhalay Rennes 26 kulan 12 gool ayuu dhaliyay kooxda Rennes heerka labaadna 22 kulan 13 gool ayuu dhaliyay Ousmane Dembele haatan dhaawac ayuu ka soo laabtay Valverde waxa uu sheegay jir ahaan inuusan taam ahayn marka laga hadlayo in kooxdu safka koowaad uu ka mid noqdo labada sugaya waxa xirfadiisa ciyaareed iska bedela kulamada soo aadan guud ahaanna barnaamijka duurnimo ee ciyaarahan isku soo gabagabeynaya waxaa noo farsameynaya Cabdullaahi Cumar Xasan Jaran dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galan u mahadcelinaya kuwa kale waqtigu uu ka ilaaday taleefanada ku jirana waan u cudur daaranayaa mid la mid barnaamijkan intaan ku kulmi doonana nabadgelyo إذاعة رسالة يا أمان بلغو هيا
bulshada wax u sheegiddeeda baaqiyo wax u jeedinteeda barwaaqo tilmaamideeda baraara u sahminteeda balaayo ka leexisteeda risaala